بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dalka Ethiopia gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida waxaan nahay dhalinyarta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee taageersan madaxweynaha xilka haya ee dawladda deegaanka Soomaalida ee xisbiga BB waxaan nahay dadka soo dhaweynaya xisbiga sida maamuuska iyo sharafta iyo qiimaha iyo milkiyada leh oo goob doorashooyinkii xaq leh oo u muujiyay goobihii istaahilay in goob doorashooyinka la geeyo annagu waxaan nahay dhalinyarada u dhalatay deegaanka gaar ahaan ka soo jeeda degmada Booq ee barigeeda deegaamadaas oo dhan baan insha Allah waxaan la wadaagaynaa anagoo joogna in ma garanaysaa la soo dhaweeyo xisbiga si muglana madaxweynaha iyo dawladda deegaanka loo taageero إن شاء الله تعالى waxaan rajaynaynaa doorashadu inay ku dhamaato si barwaaqo bashbash ah deegaanka iyo dhamaantiis inay israaco oo shacabka dhamaantiisna uu noqdo shacab isku obakan oo nabadgelyadooda ilaalsada dawladooda iyo hanaanka ay haystaan taageera mar walbana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la adkeeyo amniga iyo in la adkeeyo ismaqalka iyo in loo dhaga nuglaado xisbiga uu madaxweyne Cagjar iyo wasiirka maaliyadda heer federaal ay hogaamiyaan Axmed Shido marka dhamaantii waxaan leeyahay u diyaar garow wacan insha Allah ta'ala xisbiga barwaaqo meesha hadda aan joogno waxa weeyaan waa santarada degmada Booq qayb kamid ah hadda waxaan joognaa Gambarey santarka Gambarey oo goob doorashooyinka kamid ah insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ma garanaysaa inay santarkan inaan anaga laftirkan loo wadaagno dareenka inay u diyaar garoobaan doorashada oo shacabku ay ma garanaysaa ay u diyaar garoobaan santaradaas iyo kuwa la midka ee bariga iyo galbeedka iyo waqooyiga jira insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa si mugle in loogu diyaar garoobi doono wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين halkan dadweynaha iskugu yimid waa salaameynaa dhamaantiis qaybaha uu ka kooban yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hadoodinina hays khilaafinina hays mucaaradeenina markaas hadii nizaac iyo mucaarado ay timaado danti guud iyo dawladnimadii iyo hadafkii meesha ayuu ka baxayaa markaasna fashal ayaa dhacay iyo ducf iyo wahni sida darteed nabiguna wuxuu yiri la yusraxu naas fawda oo kama qaal ummadu fawda oo masuubato aad baan u taageeraynaa u soo dhaweynaynaa nidaamka iyo kala dambeynta iyo amniga ka jira dawladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar doorashada hadda lagu balansan yahay oo waqtigeedii la guda galayna waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay deegaanada dhaca degma Booq waqooyigeeda iyo barigeeda iyo koonfurteedaba waa soo dhaweynaynaa boorka deegaanka aan ka hadlaynana waa ka gadaashayda ku qoran wabillahi tawfiiq soo dhawaada xubnaha shaqeynaya doorashada ku soo dhawaada shacab u diyaar ah dawladnimada nidaamka kala dambeynta ku soo dhawaada aan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan salaamayaa dadweynaha meeshaan iskugu yimid baan soo dhaweynayaa qof walba maqaamkiisa baan ku salaamayaa qof walba maqaamkiisa aan ku salaamayaa oday iyo waxgarad iyo culimo iyo dadweynaha dhamaantiis salaanka bacdigi ana ku hadlahaya afka majeerteenka dawladda deegaanka ana ku hadlahaya waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga madaxweynaha dawladda waa soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa doorashada ka jirto goobta maadaama aanu nahay deegaanka degmada Booq waqooyigeeda iyo barigeeda iyo koonfurteeda waa soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa doorashadan soo dhaweynaynaa Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida doorashada goob doorashada waa soo dhaweynaynaa annagoo ku hadlayna afka majeerteenka deegaanka degmada Booq aad baan u soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan in leenahay salaamu alaykum halkan xalfadan laga dhigay deegaanka Gambarey iyo inta ku heeraaran iyo inta ka soo qayb gashay intaba
waa salaamaya salaamta islaamkaan ku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan soo dhaweynaynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo intii hoos tagtaba. salaanta islaamkaan ku soo dhaweynaynaa doorashada ka jidha waddanka la yiraahdo Itoobiya baan soo dhaweynaynaa annagoo ku soo dhaweynayna si kal iyo laab ah farxado ku jidho wanaag iyo sharaf leh nabadgelyo leh annagoo ku soo dhaweynayna baan soo dhaweynaynaa meel kasta oo ay ka jidhaba waxaan ku soo dhaweynaynaa kal iyo laab iyo niyad wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa iyo Mustafa Maxamed Cumar inta uu xukumo oo dhan oo ku heeraaran salaan diiran baan ku soo dhaweynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ku hadlayna afka majeerteen odayaashiisiina ah nabadgelyada iyo waddanka waxa ka jirana aan ognahay salaan wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan dadweynaha faraha badan oo isugu yimid oo leh cuquul odayaal dhalinyaro hooyooyin waan salaamayaa iyo baha saxaafadaba. waxaan ku soo dhaweynaynaa halka kan doorashada ka socota dowlad deegaanka. waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar baan soo dhaweynaynaa. haddaanu nahay aan ku sugannahay deegaamada waqooyiga bariga koonfurta annagoo ku hadlayna afka majeerteen waan soo dhaweynaynaa dhalinyaro ahaan odayaal ahaan hooyooyin ahaan intaba u soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay soo dhawaada waa gogasha idin taalla doorashada waa sugaynaa waan u taagannahay halkan dadka isugu soo baxay wuxuu u diyaarsan yahay inuu doorashada ka qayb galo inuu doorto madaxweynaha xisbiga barwaaqo ayaanu taageersanaa asagaanu doonaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa dhammaan dadka meesha iskugu yimid bahda saxaafadda ay ugu horeyso dhalinyarada cuqaasha odayaasha nabadoonnada. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkaan iskugu nimid inaan soo dhaweyno doorashada heer deegaan heer goob doorasho heer federaal ee xisbiga BB ee barwaaqo ay hogaaminayaan federaalka uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed heer deegaan uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar heer gobol hebel shaale. waxaan salaamayaa dhammaan xisbiga kalkaaliyayaasha goob doorashooyinka khaasatan gobolka Doolo bariga gobolka Doolo degmada Booq haddaan nahay odayaasha dhalinyarada waxgaradka goob doorashooyinka ku xusan boorka. waxaan soo dhaweynaynaa doorashada welcome baan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan nabadgelyadeeda wax ka sugno inaan cod ka bixino kaararka in loo keeno khaasatan majeerteen waan salaamayaa dhammaantiin welcome baan leenahay. bismillaah anigoo ah Xamdi Nuur kuna hadlaya afka dhalinyarada joogana centerka Gambarey waxaan soo dhaweynaynaa doorashada Itoobiya kilanka shanaad waxaana taageeranaa madaxweynaha Mustafa Cagjar. waxaan leeyahay welcome soo dhawo madaxweyne. anigoo magacayga la yiraahdo Cabdinaasir Maxamed Xuseen meesha hadda aanu taaganahayna ay tahay dabxabaalan waxay ka tirsan tahay gobolka Doolo degmada Booq waa goobaha goob doorashada haddaanu nahay dadka xuduudaha degan ee majeerteen waxaanu caddaynaynaa oo taageeradayada ku muujinaynaa inaanu taageersannahay xisbiga barwaaqo. waxaanu diyaar u nahay doorashada xisbiga barwaaqo waana soo dhaweynaynaa. waxaan diyaar u nahay in lagu qabto deegaamada aan degannahay doorashada waana soo dhaweynaynaa waana taageersannahay.
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. anigoo ku hadlaya deegaanka afka dooxbaalan kana tirsan tahay sida odayaasha hore u sheegeen degmada Booq kana tirsannahay xisbiga barwaaqa ee Itoobiya waa soo dhaweynaynaa doorashada. waxaan caddaynaynaa halkan sidii horeba loo yiri meesha la dooxbaalan anagoo joogna ay deegaankanaga tahay inaanu soo dhaweynayno doorashada waan ka tirsannahay xisbigaas. halkan waa meesha waa magacaygu waa Mahdi Maxamed Aadan waxaan joognaa meesha la yiraahdo dooxbaalan oo degmada ka tirsan Booq haddana ka sii tirsan gobolka Doollo waa xuduudka bariga Doollood. waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga barwaaqo waxaan taageersannahay madaxweynaha waxaan halkan codsigayga ka dhiibaynaa inaan ka soo dhaweynayno doorashada diyaarna aan u nahay madaxweynahana aan taageersannahay goobaha lagu qabanayo doorashada inay ka mid noqdaan diyaarna aan u nahay haddaan nahay beesha Majeerteen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud siciid diiri xildhibaan maxamuud siciid. marka hore waxaan salaamahayaa odayaasha haweenka dhalinyarada hooyooyinka iyo dhammaan dadweynaha isugu yimid meeshan oo aanu u nimid intayadaasu inaan taageerno xisbiga BBB barwaaqo iyo doorashada ka dhacaysa dalka ilaa heer deegaan bilaha soo socda. waxaan soo dhaweynaynaa doorashada waxaan taageeraynaa doorashada waxaan ka hortagaynaa wax alla wixii doorashada lid ku ah. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa santarka maaneed waxaa isugu yimid bulshadii qaybaheedii kala duwanaa waxayna diyaar u yihiin inay halkan ku soo dhaweeyaan doorashada heer kilil iyo heer federaal. waxaan diyaar u nahay santarka maaneed beelaha dega dhammaantood ururada kala duwan beelaha shacabka kala duwan waxay halkan diyaar ugu yihiin inay doortaan xisbiga barwaaqa ama BB. waxaan ku dooranaynaa sinaan iyo cadaalad iyo horumar. waxaan ku soo dhaweynaynaa Mustafa Maxamed Cumar ha noolaado war ma dooranaynaa xisbiga waa dooranaynaa waana soo dhaweynaynaa codkayagana waxaan siinaynaa xisbiga barwaaqa ama BB haddaan nahay beelaha bariga degmada Booq. wabilaahi tawfiiq. waxaan salaamaynaa xafladan quruxda badan oo lagu soo dhaweynayo doorashada xisbiga barwaaqo. waxaanu salaamaynaa dadweynahan isugu yimid oo rag iyo dumarba leh murwooyin odayaal dhalinyaro culimo macallimiin digtooro kuwa bayloodyaha ku jira xataa dhammaan ummadda meesha isugu timid waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso xisbiga barwaaqo doorashadiisa. diyaar baan u nahay waa soo dhaweynaynaa meeshaan ka hadlaynaa waa maaneed balse ilaa bariga waqooyiga koonfurta degmooyinka Majeerteen degan yahay iyo qabalayaasha dhammaan diyaar baa loo yahay in la soo dhaweeyo xisbiga barwaaqo in loo sacabtumo in la macsuumo in si sharaf leh oo wanaag leh loo qaabilo. annaguna raalli baanu ka nahay diyaar baan u nahay waa soo dhaweynaynaa waa qaabilaynaa waa dooranaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilah dhammaan waxaan salaamayaa xafladda tan munaasabadda tan sharafta leh dadkan shacabka oo iskugu yimid xisbiga barwaaqo haddaan nahay santarka maaneed shacabka degan santarka maaneed haddaan nahay santarka Majeerteen anigoo ka hadlaya codka dhalinyarada santarka maaneed waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga barwaaqo waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan waxaan ku soo dhaweynaynaa awoodayada waxaan ku soo dhaweynaynaa maalkayaga waxaan ku soo dhaweynaynaa wax walba xisbi lagu soo dhaweeyaan ku soo dhaweynaynaa waxaanu ka mid nahay xisbiga ku xisaabtamaya oo xisbiga taageeraya oo ka soo jeeda degmada Booq khaasatan santarka maaneed xisbigaas waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo buuxa xisbiga gacmo buuxa soo ku soo dhaweyn mayno xisbiga waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo buuxa
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shirkan hadda aan ka qayb galayno waa shirkii taageerada xisbiga barwaaqo kabacdi markii bulshada ku nool santarada maaneed gambarey afaridood ilaa iyo foodii cadday iyo dabxabaalan ay waxgaradkoodii iyo dhallinyaradoodii iskugu yimaadeen shirkan waxay guddoonsadeen inay taageeraan garab istaagaan xisbiga barwaaqo ayay iyo guddoonsadeen wayna ahaydoo hadda ka hor xisbiyada ayagu ay taageeraan waa ka dhex muuqan jireen ama waa la arki jiray waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga barwaaqo waxaan soo dhaweynaynaa doorashada loolanka doorashada inaanu si buuxda uga qayb galno annagoo dadkayaga iyo degaankayaga iyo diinteeda intaba ku horumarinaynaa una sheegayna uguna baaqayna bulshada ku nool degaamadaas inay xisbiga barwaaqo taageeraan isla mar ahaantaasna si buuxda mataqaanaa ay codka ugu diyaar garoobaan una soo dhoweeyaan waxaan leenahay xisbiga barwaaqo waa xisbi nabdoon waa xisbiga talada haya waa xisbiga nabadgelyada waa xisbiga horumarka waa xisbiga bulshada waa xisbiga maanta loo baahan yahay inuu bulshada gaarsiiyo ama bulsho kastaba gaarsiiyo ama degaankaba gaarsiiyo horumar iyo barwaaqo gaarsiiyo kaasoo laga garanayo tii hore iyo midda maanta halkii maxaaha xaaladaha u dhaxeeya intay leegyihiin waxay isu jiraan cirka iyo dhulka sidaa awgeed annagoo ku hadlaynaa afka bulshooyinka degmada booq santarka maaneed iyo gambarey iyo afaridood iyo mirafadle iyo dhammaan santaradaas foodii cadde ilaa dabxabaalan raaxo ama magaca majeerteen ku hadlayna waxaan leenahay waxaan taageerinaa oo taageersannahay oo garab taagannahay xisbiga barwaaqan taageersannahay waxaan taageersannahay madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafe maxamuud cagjar baan taageersannahay waxaan taageersannahay rabitaankayaga oo aanu ku aadinayno xisbiga barwaaqo inaanu garab taagannahay doorana doonno wasalaamu calaykum halkaan ka salaamayaa dhammaan bulshada iskugu timid rag iyo dumar culumo oqaal waxgarad dhammaan kulligood waan salaamayaa waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga BB barwaaqo baraar xisbiga ayaan soo dhaweynaynaa awalna waan taageersaneen haddana doorashooyinka iyo goob doorashooyinka inta waan soo dhaweynaynaa waana taageersannahay waxaan kaloo ugu baaqayaa bulshada dhammaanteed xisbiga in la taageero waa xisbigii barwaaqada waa xisbigii horumarka waa xisbigii nabadgelyada waa xisbigii xorriyadda waa xisbigii waxa weeye kobcinta waxa weeye bulshada iyo baraaraheeda waxaan annagu mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynaynaa annagoo majeerteen ah oo degmada booq khaasatan santarada kale ah maaneed mirafelle gambarey afardood tuulo raaxo dabxawaalan foodii cadde tuulo jiiqa waxaan soo dhaweynaynaa annagoo afka majeerteen ku hadlayna waxaan taageersannaha xisbiga BB barwaaqo horumarka deegaanka asagaa ah waxaan hormuud ka ah mudane madaxweyne mustafe maxamed cumar cagjar waana taageersannahay doorashadana waa xaq qabashadeeda iyo nabadgelyadeena waa u taaganna inaan ka shaqayno inaan ka qayb qaadanno waxaana ilaahay ka baryaynaa si nabadgelyo ay nagu dhacdo xisbiga barwaaqo ha waaro xisbiga barwaaqo ma taageersantihiin bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaanka degma booq ka mid ah xildhibaanada ah gobolka doollo kililka soomaaliyeed ee Itoobiya waxaanu halkan ka muujinaynaa taageerada aan u hayno xisbiga barwaaqo madaxweyne cagjar mustafe maxamed annagoo taageeradiisa muujinaysa oo ah ka soo jeedna bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga degma booq gobolka doollo waxaanu halkan ka muujinaynaa taageerada aan u hayno oo ku sinan cadaaladda iyo firfircoonida sidaa awgeed taageero buuxda rag iyo dumar waxgarad odayaal culumo waxaanu u muujinaynaa taageero buuxda sidaa baanu caddaynaynaa oo muujinaynaa annagoo ah gobolka doollo degma booq santar maaneed waxaan caddaynaynaa annagoo ah ummadda joogta
ka tirsan gobolka doollo degmo booq santarmaaneed waxaan caddaynaynaa deegaankaas iyo gobolka doollo iyo inta hoos timaada iyo qabalayaashiisa iyo santaradiisa inaan raacsannahay xisbiga barwaaqo ka tirsannahay taageerayno ka mid nahay aanan ogolayn xisbiyo kale ururo kale waxyaalo kaloo meelo kale ka yimaada midna aan taageerayno xisbiga barwaaqo oo hogaaminayo mustafe maxamed cumar uu hoggaanka u yahay u sarreeya madaxweynaha waa soo dhowaynaynaa waa dooranaynaa waa doonaynaa annagoo ah deegaankaas iyo inta laga xukumo gobolka doollo iyo akabaabigeeda khaasatan degmo booq santarmaaneed iyo santarada kale iyo qabalayaasha hoos yimaada waxaan caddaynaynaa inaan nahay xisbiga barwaaqo oo raacsan xisbiga barwaaqo oo raacsan xukuumadda hadda ka jirta kililka soomaalida oo hoggaanka u yahay mustafe maxamed cumar baan taageeraynaa raacsannahay haddaan nahay shacabka deegaamada ku nool dhammaantood ilaahay baa mahad iska leh safar dheer waan ku marinay degmada booq iyo nawaaxigeeda iyo santarada ku meersan dhinaca bariga galbeedka iyo waqooyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu soo dhameeyey safarkaas si guul ah oo qurux badan safarkaasna wuxuu ahaa taageerid la taageerayo xisbiga barwaaqo oo madaxweyne Mustaf Cagjar oo magaranaysa madaxweyne ka yahay deegaamada dhammaan aan maraynay waxaan ku soo aragnay bulsho kala duwan oo magaranaysa taageeradooda ay muuqato xisbiga himilo iyo han u qaba insha Allah taala marka waxay soo bandhigeen dhammaantood inay xisbiga taageersan yihiin majeerteenka ama ku dhaqan degmada booq iyo nawaaxigeeda ee kala duwan qabalayaasha bariga iyo waqooyiga iyo koonfurta dhammaantood marka safarkii aan ku baxnay sida guul uu noogu soo dhamaaday galabtoo ah galab jimco ah insha Allah taala haddana waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa santarka maaneed iyo santarka gamarey meel u dhaxaysa oo baadiye ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida guusha leh ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu soo dhameeyey safarkanagii waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga iyo maamulada ka jira deegaanka gaar ahaan degmo booq oo si wanaagsan ammaanka iyo u sugayay magaranaysa isu socodka ayagoo ilaalinaya cudurkan soo noqday dunida halakeeyay ee COVID-19 deegaamada aan maraynay kulligood waxaa ka jiray nolol caadi ah waxaa dad dawladnimada fahansan una bisil amniga wuxuu yahay dareensan caafimaadku wuxuu yahay dareensan waxaan leenahay alxamdulillahi rabbil caalamiin safar guuleed buu ahaa waan uga mahad celinayaa bahdii dhalinyartii safarka ku jirtay uu ka mid yahay TV-ga SBC oo wariye Axmed Shaaciro uu ka yahay iyo dhalinyartii kale oo kala duwaneed gobolka ku ka soo safray iyo kuwii deegaamada safarka kula bixinayay waxaan leeyahay dhammaantood waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay safar guul nooga dhigay safarkanagii insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa tiimkii hogaaminayay qayb ka mid ah safarka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.